dalka Koonfur Afrika ayaa waxay waayadii dambe aad ugu soo badanaya Soomaalida lagu leynayo halkaas iyadoo hantidoodana dhac loo geysanayo waxaana ka dambeeya kooxo budhcad oo dalkaasi u dhashay magaalada Cape Town waxa lagu dilay ganacsada Soomaali oo sida la sheegay rakubaysan oo ayaa goobtiisa ganacsi ku dilay waana dilkii toddobaad ee Soomaalida lagu leynayo muddo 2 toddobaad gudahooda halkaasi ka dhaca Axmed Maxamed Sheekh Xuseen oo kamid ahaa Soomaalida degan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay inay bateen dambiyada dilka ka dhaca halkaasi ayna sabab u tahay dhaqaale oo hoos u dhac uu ku yimid kadib xaaladda COVID-19 cudurka corona taasina ay keentay in budhcadu ay toos u bartilmaameedsadaan ganacsatada gaar ahaan kuwa Soomaalida booliska dalkaasi ayaa sheegay in 72 saacadood gudahooda ay ku soo qabteen budhcadii geysatay dilka haatan ay xabsi ku jiraan